maxaad dareemi lahayd maanta adigoo intaas oo rafaad soo maray muddo soo dawaalanayay doon kula gadoontay xeeb timid markaad islahayd gudaha xeebtaanayta waxaad ka heli doontaa meelaad u hoyato ama reer aad ka weysay duur ee kugu noqotay meel yar samaystay meeshiina ee kaa gubatay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waa idin salaamaya ummadda islaamka ee ku xiran janaalkayga. waa maskiinkii waayelka ahaa Sultan Safi on the beat. soo noqosho wanaagsan, maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, subax wanaagsan, galab wanaagsan, wax walba ku tahay wanaagsan. maanta waxaan rabaa qiso yar oo cajiiba oo nolosha sida ay tahay inaan ka sheekeeyo oo aad soo akhristay. waxay ku saabsan tahay qisadaasito wiil muslima ama islaama oo safar aha musaafir aha oo islaam aha. wiilkaas wuxuu ku safraayay sida aan naqaano doon ama saxiimad. wiilkaas wuxuu la kulmay qadar inta badan la kulantay dhalinyarada Soomaalida ah oo tahriibayaasha ahaayeen oo kaleeto. doon ayaa la qalibantay oo la gadoontay. doontaas markii la gadoontay wuxuu noqday ninka kaliya oo yaqaana dabaasha sida loo dabaasho. wuxuu socdo uu dabaasho wuxuu Ilaahay haleelsiiyay in uu dabaal ku tago meel xeeb ah. alxamdulillahi rabbil caalamiin. markuu xeebtii tagay ma ahan xeebta uu tagay xeeb lagu nool yahay ama meel dhul ah oo lagu nool yahay. wuxuu tagay xeeb oo keena oo weliba duura. wuxuu cabaar dhex socdaba xeebtii uu yara cabsaday. nafta ayaa waxay tiri noqon yahow xeebtii aad ku soo maxallaya aad ka soo xiratay dabaasha aad ku timid ku laab. wallaahi mararka qaar way dhacdaa laakiin ma badna. markuu xeebtii tagay oo wuxuu is yiri waxaad samaysataa aqal ama meel yar duurkaan intaad gasho geeda ka soo jaro intuu gabalka kugu dhicin waxaad samaysataa dhardhaar sida aan u naqaano Soomaali markaan nahay. yar shido meel yar aad ku xarooto oo dabeesha iyo qabowga aad ka gashaa samayso. geedihii uu soo gurtay ayaa wuxuu ka samaystay meel yar uu ku hoydo. dabna uu ka yaray maxallahay uu ka yaray shitay. dabkii yaraa uu shitay waxay u dhawaayeen geedihii uu dhistay si uu ugu hoydo maadaama uu meesha xeeb ay tahay qabowgeedana uu badan yahay. biqudratillah wax walba Ilaahay uu qoraayo horta way ugu dhacaya. waxaa dhacday inuu gabalkii sii yara dhaco uu gareystay inay maqrib tahay inuu iska bixiyo salaadii maqrib ee Ilaahay uu ku lahaa. uu weesaystay salaadii uu istaagay. intuu salaada ku jiray ayaa waxaa ku dhacday lama filaankaas oo ah in dabkii uu shitay uu ka gubo meeshii yareed uu asaga dhistay dab xad dhaafna uu noqdo uu zaa'id u gubato meeshii. markaasaa qofkii ka waran maanta adigoo meel cidla jooga oo u baahan gargaar ama waxba meel aad ku hoyatana aadan haysan aqalkii yaraa ama meeshii yaraa aad dhisatayna ay kaa gubatay. wuu qoomameeyey, wuu cabsaday. wuxuu yidhi Ilaahay buu u laabto. wuxuu yidhi Ilaahay buu bari. wuxuu yidhi Ilaahayow maxaad iga ciqaabaysaa doontii aan saaraana gadoontay. Ilaahay waa isoo badbaadisay. Ilaahayow qadarkaaga waxaan ku imid xeebtan meeshii yareed ama gabaadkii yaraa aan samaystana waa kaas dab aad iga qabadsiisay oo iga gubta dabkii maxallahay iga gaaray. Ilaahayow addoonkaagaan ahay sidaan si iigu dhaan. maxaad dareemi lahayd maanta adigoo intaas oo rafaad soo maray muddo soo dawaalanayay doon kula gadoontay xeeb timid markaad islahayd gudaha xeebtaanayta waxaad ka heli doontaa meelaad u hoyato ama reer aad ka weysay duur ee kugu noqotay meel yar samaystay meeshiina ee kaa gubatay. noloshu waa cajiib, wax walbana waa la kulmi kartaa laakiin waxaa la isdhaafaa waxay tahay iimaan. markaan leenahay 2022 yaa la joogaa. 2022 la joogo dadka iimaankooda xaguu la ekaan karaa maanta. sida annaga ognahay inta badan daciif badan wuu jiraa laakiin alxamdulillah waxaa Ilaahay u qadaray inuu iska seexdo meel iska seexda. asagoo jiifo ayaa waxaa u yimid markab. markii la kiciyay ayuu wuxuu arkay sida loo raadinayay meesha looga raadinayay ayaa la arkay. markii la kiciyay ayaa wuxuu arkay leerar weyn oo xeebta ifinaya. haddana
buu lama filaan ku noqotay markii lama filaan ku noqotay markii la soo saaray xagee socotaa ayaa la yiri wuxuu sheegay baleyskii ama meeshuu u socday inuu aade ahayd markaas ayuu wuxuu yiri waa wuxuu ilaahay watee wuxuu yiri sidee baad ku ogaateen ama aad ii raadinayseen inaan halkan joogo markaas kuwii dadkii markabka watay ama kabtankii wuxuu ku yiri waxaan ku garanay ololka iyo dabka badan ee aad shiday meeshii oo gubanaysa qaaci iyo wixii aan aragnay sidaas ayaa waxaan u garaysanay halkan inuu qof joogo uu garabna u baahan yahay marmar baa jirta markay dhibaato ku qabato aad ka dhibsanayso ama culays kugu noqonayso laakiin dhibkaas ku gaaraya waa imtixaan lagu imtixaamayo yarkii wuxuu ku badbaaday dabkii aqalka uu samaystay uu ka naxsanaa biqudrati illaahi ka gubto dabku shita kaga gubto ka naxsanaa maxaa uu kaga naxsanaa ayaa wuxuu qadaray inay maraakiib arkaan maraakiibtii u soo leexdaan asagana qaadaan uuna seef garoobo marka nolosha maanta wax walba way ku tusaysaa sheekadan waxaa usoo gudbinayo oo ama u sheegayo waa inaan naftaada aysan ku hogaamin shaydaanna uusan ku hogaamin waayo dhalinyaraa leeyahay dhalinyaro maanta markii leeyahay cilmiga dadka soomaalida ahaa maadaama aan soomaali annaga aan ka dhalanay dadka soomaalida ahaa cilmigii waxay u barteen ama waxay u arkeen shahaado yar laga soo qaato jaamacad ama iskuul la soo dhigto cilmiga kaama aha man yuriidu llahu bihi khayran yuwaffiqhu fi ddiin qisadaas yaraan jeclaystay inaan ila wadaago waa maskiinkiini waa yeelkii maskiinka ahaa Sultan Safi janalka dad ku cusub tahay please subscribe like share comment qurux badan ka soo bixi haddii aad sheekadan ka heshay oo aad soo gaarto dhamaadka xilligan adigoo mahadsan share gareey like gareey commentina ka soo bixi وإني سلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي